salaan kadib waxaanu hambalyeynaa wasaaradda horumarinta jidadka iyo maareeyaha waddooyinka hawshaa fiican ay qabteen. waxaanu ka hambalyeynaa hawshaa qaranimo ay guteen iyaga iyo shaqaalahooda injineerhooda iyo dhammaan ciddii waddada ka qayb gashay. waxaa kaloo aynu tixgelinaynaa cabashooyinkii ay soo jeediyeen ay ka mid tahay shaqaalaha iyo dhaqaalayaridu. waxaa kaloo aynu wax ku qaadanaynaa waxuu inoo sheegay wasiirku waxaynu u baahan nahay 34,000 oo kilomitir oo waddo laami aynu dalka u dhisno. waxaanu sheegay inuu dhisnay 1,000 keliya, markaa waa 1% iyo dhibic baan maranaya 10% iyo dhibic malaha 1% dhow baa la qabtay. waddo dheer baa dee inoo taalla 10% hadday noqonay 9% baa waxay noo 9. idinku halkaa waxaad tihiin barbilowgii horta waynu ku tababarnay waddadan lalaa ceergaaw burco ha dheeraato. waynu ku caqliyan baynu ugu tababarnay maskaxdeenna inaanu dhisan karno waddooyin. dadkana waynoo tababartay inaanu wax qabsan karana waynu aaminay. kharashkeeda inaanu samayn karana waynu aaminay. sanadba sanad ka dambaysana waaye aragga iyo kalsoonida iyo aqoonta way soo kordhaysaa. marka ilaahay idinka waxaan ka rajeynayaa inaanu sanada soo socda halkay 10% ka tahay 20% ilaa 30 gaarsiino. waxaa le wixii tamar ahayd dowladdu haysana way idin garab gelaysaa. dadka shaqaalaha ee waaye aragga ana sidii loo shaqaalaysiin lahaa dhaqaalay ku xidhan tahay. markaynu isla eegno wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda hay'adda shaqaalaha haddii alla yidhaahdo wixii suurtagal ka qaaday hambal iyo mar labaad aad